السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدمن السلامية جودهان صاحب بيال waxaad ku soo dhawaataan sheeko aad iyo aad u xiiso badan xasuusna ay wala runantii waa sheeko caruureed ayaan maanta ku tuuran doonaa maasha Allah tabarakallah ilmaha aad abtiga u tahay oo walaasha ay dhashay ilmaha aad habaryarta u tahay walaalka u dhalay waxyaabaha soo dhan ayaad uga sheekin kartaa insha Allah yani eedada aad u tahay aan dhahe kuwa habaryarta u tahay haddii adiga Ilaahay uu ilmo ku siiyna waad uga sheekin kartaa runantii waa sheeko caruureed aan inaba caadi ahayn marka sheekada baan ku tuuranaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa in aan idin soo xasuusin doonin inaad like gareysaan oo aad share gareysaan insha Allah haddii aadan hore noogu soo biirina aad nagu soo biiri doonto insha Allah inaad nagu soo biirtahay sheekooyinkan aadka u quruxda badan inaan soo diyaarino ayaa sabab noqon doonta insha Allah casharkan hal dhiirigeliya saaxiibayaal dhiirigelintu runantii aad bay u yartahay waayahay waxaan ciwaan uga soo dhigay the fox the wacadi and the crocodile iyo yaxaaski waa sheeko caruureed aan waxba laga qaban karin a long time ago waqti dheer ka hor a long time waqti dheer ago ka hor waqti dheer ka hor there was waxaa jiray a fox dawaco whose sister taasoo walaasheed was getting married ay guursanaysay dawaco ayaa walaasheed arooskeedii soo dhowaa the fox dawacadu wanted waxay doonaysay a plan qorshe to help ay ku caawinayso her sister's wedding party xafladda guurka ee walaasheed wedding party waa xafladda guurka the fox dawacadii had no tongue ma aysan lahayn carab waa sheeko caruureed dabcan had no tongue carab ma aysan lahayn so she couldn't make ma aysan samayn karin the special sound codka specialka ama codka khaaska ah dabcan waad garanaysaan Soomaali in lagu yiraahdo waan jeclahay alalaaska used ee loo isticmaalo to celebrate in lagu dabaaldego the wedding arooska lagu dabaaldego she decided waxa ay go'aansatay waa dawacadii to ask inay soo weydiisato around for someone qof hareeraha inay qof ka soo weydiisato to learn inuu daymiyo ha iyada a tongue carab dadka ay inay carab ka soo deynsato doonaysaa carabkaas maxay for the wedding guurka ay u rabtaa inay uga qayb qaadato oo walaasheed ay ugu alalaasto waayahay she went waxay aaday from one animal laga bilaabo hal xayawaan to another midka kale xayawaankan u takan kale ka sii tag siday u socotay asking iyadoo weydiinayso to borrow in la amaahiyo a tongue carab a tongue ay carabkaas in la amaani so that darteed she could make waxay samayn kari lahayd the special wedding sound codka guurka ama arooska ee qaaska ah specialka ah she said waxay dhahday that she would return in ay u soo celin doonto the tongue carabka after the wedding guurka kadib finally ugu dambeyn she went waxay aaday to the crocodile yaxaas bay aaday the crocodile yaxaasku was sleeping waxa uu ku hordayay on the edge geeska of the river ee webiga and she said waxa ayna ku tiri crocodile yaxaasow please lend me fadlan e amahi your tongue carabkaaga e amahi so that sida darteed I can make waxaan samayn karayaa the special sound codka khaaska ah at my sister's wedding arooska walaasheeye walaalkayo maanta carabkaaga igu amahi leedahay finally ugu dambeyn the crocodile iyo xaaskii agreed waa uu ku raacay but laakiin she warned waa uu u digay that she would have to return ay qasab ku tahay that she would have to return in ay u soo celiso the tongue carabka as soon as the wedding was over sida ugu dhaqsiyaha badana guurku uu dhamaado was over markuu dhamaado the fox dawacadi said waxa ay dhahday thank you mahadsanid I'll return waan ku soo celinayaa it waa carabkiya as soon as possible sida ugu macquulsan uuna dhaqsiyaha badan the fox dawacadi took waxa ay qaadatay the tongue carabkii bay qaadatay and went waxayna aaday to her sister's wedding guurka walaasheed bay aaday she made waxa ay samaysay that special sound codkii specialka ahaa the whole night habeenkii oo dhan walaasheed guurkeeda bay ka alaalaasaysay the crocodile yaxaaskina was waiting for the fox waxa uu sugayay dawacadii to return inay u soo celiso his tongue carabkiisii when the wedding markii arooskii was over uu dhamaaday the fox dawacadii didn't return uma aysan celin the tongue carabkiisii uma aysan soo celin
sheekadan markaad ciyaalka uga sheekaynayso yacni ingiliishku ma dhex jiro oo af Soomaali ahaan baad uga sheekaynaysaa run ahaantii sida attention-kooda waxay kuu soo in doonaan iga qor waad ugu soo xasuusan doontaa saddex cunug ama saddex ciyaala meel isku keen oo adigu aad dhashay ama aad wax u tahay ee sheekadan uga sheekay hal cunug oo hadlaya kuma jiro doona mid waliba indhahaaga iyo afkaaga u day doona aad buu jecel sheekooyinka noocan ay rurto marka the fox didn't return the tongue carabkii uma aysan celin the other animals xayawaanadii kale ayaa asked waxa ay weydiiyaan the fox dawacadii why she didn't return sababta aysan ugu celin the tongue carabka to the crocodile yaxaaskii the fox said dawacadii waxay tiri for a long time I didn't know how food tasted for a long time waqti dheer ama muddo dheer I didn't know ma garanaynin how food tasted sida cuntadu ay u dhadhamaysay I don't want ma doonayo to lose inaan lumiyo my chance fursadayda to taste aan ku dhadhaminayo all the different delicious foods and cuntooyinka macaanta badanna ee kala duwan dhammaantood and I can't return umana celin karo bay leedahay unless ilaa iyo I make these sounds aan ka sameeyo codadkan after that intaad kadib the crocodile yaxaaskii has no tongue wax caraba ma lahan ilaa iyo maantadan bay yiraahdaan Soomaalidu he grabs waxa uu qabsadaa his food cuntadiisa without tasting isagoo aan dhadhamin shayga markuu soo qabto isagoo aan dhadhamin iska laqaa the fox dawacadi never goes ma aado iyana to the river webiga ma aado iyaduna and she might meet waxay la kulmi kartaa ama laga yaabaa inay la kulanto a crocodile yaxaaska and marka meeshaan ciyaalku si fiican uma fahmi karaan adiga laga rabaa inaad u sii cusbo iyo suugo inaad ugu darto waxa leedahay in dawacadu ilaa iyo hadda way iska ilaalisaa webiga maxaa yeelay waxay ka baqaysaa haddii webiga tagto yaxaaska inuu qabto ayaa laga rabaa sida inaad ugu sheekay so she is scared waxay ka baqaysaa that in the crocodile yaxaasku might kill her inuu dilo and take una ka qaato his tongue carabkiisi back dib inuu uga ceshto the crocodile yaxaasku is still waiting for the fox weli waxa uu sugayaa dawacadii to get si uu u helo his tongue back si uu carabkiisi dib ugu helo lesson we learned and casharka aynu ka baran marka sheekadan like the crocodile sida yaxaaska oo kale a person shakhsi ayaa can do samayn kara good things waxyaabo wanaagsan but laakiin might not get waxa laga yaabaa inuusan helin any riwaadkii uu mudnaa inuusan helin wax abaalmarina yani dadka qaarkiis waxa laga yaabaa inay wanaag ku sameeyaan laakiin wanaagga ay sameeyeen aysan abaalmarintooda helin the end inta ayaan kusoo afmaraya muuqaalka xiga inta la gaaray waxaan kaga tagaa sidaas iyo amaana Allah ballanteena waa casharka la taageero saaxiibayaal